maarmaan shacabkeenni waxa weeye si aan waxa weeye munaasab ahayn ayuu magaaladii oga baxayaa, si aan munaasab ahayn buu u shakisan yahay, si aan munaasab ahayn buu u hadlayaa. waxaasoo dhan waxba kama jiro. waxa weeye xukuumaddii waxa weeye mataqaanaa diyaar waxay u tahay inay maxaan ku dhahdaay idinla qaybsato waxa weeye dhib iyo dheefba, inaan waxa weeye mataqaanaay dadkii barakacay ee waxa weeye ku barakacay arrintan qorshayaashii mustaqbalka dib loogu dejin lahaa inaanu maxaan ku dhahaa ka fikirno ayaanu u fikiraynaa. waxa weeye inta dhimatay baan ka xunnahay, inta dhaawacaan maxaan ku dhahdaay ka xunnahay. waxaa loo baahan yahay markaa propagandada magaalada socota waxa weeye mataqaanaay in laga gaashaanto, in guryaha ay ku nagaadaan oo waxa weeye xaaladda sidii caadigeed lagu soo celiyo, in dukaanada la furo, in waxa weeye xafiista la galo, in waxa weeye mataqaanaa ka mas-uuliyad ahaan qorshaha waan qaadanay. muwaadilkii deegaanku waxa weeye diyaar waxay u yihiin beri 2 subaxnimo laga bilaabo mas-uul ilaa shaqaalihiisii inay xafiista galaan, waxa weeye adeegii ay bixiyaan. dadka ganacsatada inay dukaanada dadka u furaan, dadkii way gaajoonayaan, nin walbana dukaankii ama bakhaarkii wuu xidhay. waxa weeye taasina waa khalad walaalayaal. waxaan idinka codsanayaa mar labaad iyo mar saddexaadba anoo ku hadlaya magacayga iyo magaca bulshada ku nool dowlad deegaanka soomaalida Ethiopia in deegaanka aad inoogu soo celisaan xasiloonidii caadiga ahayd. haddii guri burburay inagu inaga burburay, haddii waxa weeye wadda burburtay inaga burburtay, hadduu gaari burburay inagu inaga burburay, hadduu xafiis burburay inagu inaga burburay. walaalayaal wixii aan dhisannay inaan wax ku darsanno mooyeen iyo inaan iska burburinin. nabadgeliyadu 100% waxa weeye mataqaanaa waan sugaynaa, diyaar waxaan u nahay inaan shacabka badbaadino. dhanka kalena